Madasha Nabadda iyo isdhexgalka gobolka Mudug ayaa qada sharaf loogu sameeyay degmada Xarfo ee gobolka Mudug. Madashu inta aysan soo gaarin Xarfo waxay soo mareen deegaanka Bacaadweyn halkaas oo maamulka deegaankaasi ku soo dhaweeyay iyagoo ay goobjoog ahaayeen gudoomiyaha degmada Xarfo iyo bulshada reer Bacaadweyn. Wada sheekaysi dheer kadib waxaa la isla meel dhigay in nabadda la xoojiyo. Intaasi kadib madashu waxay soo gaareen degmada Xarfo halkan oo maamulka degmada Xarfo ku maamusay qada sharaf heerkeedu sareeyo. Madasha Nabadda iyo isdhexgalka gobolka Mudug iyo maamulka degmada Xarfo ayaa socod lug ah ku soo maray shaaracyada sidoo kale waxay la shaaxeeyeen bulshada reer Xarfo. Markuu soo dhamaaday qada sharafta iyo wada sheekaysiga waxaa warbaahinta dowladda Puntland la hadlay gudoomiyaha degmada Xarfo Cabdulqaadir Cumar Jaylaani isagoo soo dhaweeyay Madasha Nabadda iyo isdhexgalka. waxaa maanta degmada Xarfo lagu soo booqday dhalinyarada Madasha iyo isdhexgalka gobolka Mudug. ma sha Allah waan oga mahad celinaynaa mas'uuliyiinteeda tirada badan ee noo timid maanta halkan ugu soo booqatay. xaqiiqatan ururkan saameyn badan buu ku leeyahay gobolka Mudug. waxaan rajayn doonaa insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu Soomaaliya dhan ku noqdo tusaale uu wada gaarana. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dhammaan mas'uuliyiinta gobolka Mudug oo sanawaadkii dambe noqotay xaqiiqatan astaan nabadda u noqotay. annagoo garanayna gobolka Mudug dhibaatooyin ka jiray dagaaladii sokeeye ee ku soo laalaabtay sanawaadkii hore. ilaahay baa mahaddeeda iskale. hadda waa nabad wax la socotaan dhowr sano inay nabad ahayd la isku furay meel kasta la marayo qofku meel kasta uu mari karo iyo magaalada labadaba asagoon alla ma cid kaan ka baqayn. waxaa mahaddeeda iskale ilaahay ka sokow mas'uuliyiinta ka qayb qaatay oo ay kamid tahay mas'uuliyiinta maanta nala joogto dhalinyaradan ugu horeyso oo ay kamid yihiin gudoomiyaasha gobolka Mudug dhan kastaba ahaadeen iyo duqooyda maartay mas'uuliyiinta kale oo kuwa helisa ama kuwa ciidamada ha noqoto ama kuwa madaniga ha noqoto intaba baa mahaddaas kale. waxaan anagu ku baaqaynaa ama aan soo dhaweynaynaa nabaddaas gobolka Mudug in la sii horay loo sii hormariyo. gudoomiyaha Madasha Nabadda iyo isdhexgalka gobolka Mudug iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Mudug ahna xubin firfircoon oo ka tirsan Madasha Nabadda iyo isdhexgalka ayaa dhankooda ka mahad celiyay soo dhaweynta iyo qada sharafta loogu sameeyay degmada Xarfo. maanta oo ah maalin Jimco ah waxaan safar uga soo baxnay saakay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. waxaan ku soo marnay deegaano badan. waxaana ku soo gaarnay safarkeena gabagabaysa degmada Xarfo. waan casuumaad ka helnay gudoomiyaha iyo xubnaha golaha deegaanka iyo guud ahaan maamulka degmada Xarfo. ujeedada halkan aan u nimid waxay ahayd Farriinta nabadda maadaama Madasha Nabadda isdhexgalku ay ka shaqeyso arrimaha nabadda iyo horumarinta gobolka Mudug inaan halkan soo gaarsiino. waxaan kulamo la qaadanay qaybaha kala duwan oo bulshada sida culimada, dhalinyarada, haweenka iyo maamulka degmada Xarfo. runtii degmada Xarfo waa degmo taariikhi ah. horumar badan ayaana ka jira. waan ugu hambalyeynaa maamulka degmada iyo dhammaan bulshada degmada Xarfo sida sharaftu ay noo soo dhaweeyeen, sida sharaftu ay noo casuumeen, sida ay u muujiyeen inay nabadda ay garab taagan yihiin. aad iyo aad baan u faraxsanahay halkaan maanta inaan nimaano. ujeedka socdaalka wuxuu ahaa waa iska tabliiqintii nabadda oo aynu degmooyinka ku kala bixinaynay. horey waxaan u tagnay degmooyinka Galdagob iyo Bandiiradley. haddana waxaanu jecelnahay insha Allah taala waxaan soo gaaray degmada Xarfo. insha Allah taala deegaano kalena waynu tagi doonaa. shacabka iyo bulshada gobolka Mudug waxay ku go'aansadeen inay nabad ku wada noolaadaan. taas bayna dhalinyaradu u yihiin calaamad iyo astaan. waxayna ka shaqeynayaan mar kastaba insha Allah taala sidii dadkaas meel walba ay joogaan Farriintaas nabadeed ay u gaari lahayd isdhexgalka u shaqeyn lahaa